nimankii hindida ahaa way soo laabteen mar kale ayay maanta weerar soo qaadeen laakiin maxaa ka raacay mar kale haddana nimanka bakistaaniyiinta niman caadiya maaha nimanku markay soo qaadaan banagtee ka saarayaan haddaba marka hore aan idin tuso warbixin telefishinka asharqul awsad uu qoray wuxuu leeyahay bakistaan waxay soo riday 25 diyaaradood oo daroon ah oo weliba nooca Israa'iil ay samaysay ah oo Hindiya ay ku soo weerartay Bakistaan marka waxa la sheegay mid kamid ah daroonadaasi ayaa waxa ay wax ku dhufatay goob military oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Lahore mujeda saacadii la soo dhaafay drones soo bilaabay diyaaradihii dagaalka soo tii la qaramsaday Rafael iyo Sukhoi Sodon iyo Ruushka iyo wixii soo lama ridin hadda drones Israa'iil drone waxay u keentay Turkish xaggan lagu ma sheegin iyaguna drone ay u keeneen markaas dadkii la wareysara bogtay barka wariye la yiraahdo Cabdiraxmaan Madar oo Al Jazeera u jooga Pakistan oo agaasimahoodii ah ayaa dadka wareysanay markaas wuxuu leeyahay diyaaradaha droonka meel walba ayaga ku fiirsanay meesha Gaza oo baaratay oo iska masaakiin oo Israa'iil droonkeedu saas taga dhex wareegay miya beeshaan Israa'iil sameysay kula soo direedeen 25 alla cunayo lagu leeyahay 25 diyaaradood oo droon ah halkaas ku tageen marka waxa leeyahay hadda aan idin hadlayo wariyaha Al Jazeera wuxuu leeyahay waxaan haynaa xog ku saabsan xuduudka in la isku dhaafsanayo rasaas iyo madaafiic nimankii Hindida marka waxay diyaaradihii droonka ahaa waxay dhibaato gaarsiiyeen marka dad ayaa dhintay Pakistan gudaheeda dadna way dhaawacmeen iyaguna diyaaradihii sida shimbiriyo kala looga soo daadiyay wasiirkoodii gaashaandhigga marka hadlay Hindiya wuxuu yiri annagu in xaaladda looga sii dara marnooyo haye soo mar labaad weerar soo qaaday awal inta lagu jabshay soo noqotay marka xaaladda in looga sii dara marnooyo laakiin hadii Pakistan ay markan soo aado waa iska dhicinayna ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa isaguna hadlay wuxuu yiri wax kasta nagu qaadatay dadkeena iyo dalkeena waa difaacaynaa nimankan meela saareen ay dheh haddaba marka wariyaashu waxay leeyihiin waxa laga baqayaa maadaama laba weerar oo isxigxigay Hindiya ay soo qaaday oo Pakistan ay difaac ku jirto markan inay tahay markii Pakistan markeeda inay weerar qaadi doonto saacadaha soo socda Pakistan inay iyaduna weerar ku qaadi doonto Hindiya taasa maaratay aad looga baqayaa oo leeyahay wariyaashu ay ka sheekeynayaan marka waxay leeyihiin xiisadu way kacsan tahay diblomaasiyaduna aaday u xoog badan tahay madaxweyne Trump wuxuu u xil saaray arintaasi inuu xalliyo wasiirkiisa arrimaha dibadda isla markaana sii haya xilka la taliyaha ammaanka qaranka labada dhinac ayuu wada hadalo la yeeshay xaaladda in la qaboojiyo saas waa la qaylinayaa laakiin nimankii Hindidu waa hari laayihiin waa quusan laayihiin أول 5 diyaaradood aan laga culay iyo 6 waxay ahaayeen ma garanay maalin hore barnaamijka ku soo qaaday maanta maxay maray 25 25 ay dubteen nimanka Pakistaaniyiinta sheekadii wali way socotaa miidiya waa la isku tuuriyana nimankiina dabka caawuda nimanka dabka caawuda baarad nimankiina nagtaadi ka saarayna ayaguna waxay leeyihiin annagana waa soo qabanayna argagixisay annaguna dhagaadi ka garaacayna marka sheekadu irkaasi maraysa